deegaanka Saydheelow oo qiyaastii 40 kiiloomitir injarta magaalada Baydhabo ee gobolka Baay muddo ku badan 10 sano iyo ku aramayaan argagixisada al-shabaab iyo geeka gacan ku hayntiisa la wareegay cutub iyo ku tirsan ciidanka daraawiishta dawladda koonfur galbeed kureet howlgal baleeran oo iyo ku suubiyaan deegaan hoos kooyo magaalada Baydhabo ee gobolka Baay cutubyadan ku tirsan ciidanka daraawiishta dawladda koonfur galbeed ee howlgalka suubiyo horka hay taliyaha madaxtooyada dawladda koonfur galbeed Isaaq Ali Isaaq iyo gacan ku haynta deegaanka Saydheelow markii la wareegay mayo howlgalka lagu sii suubiyana tuulooyinka hoos kooyo deegaankaasi haana ku mid ah maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo faday antireed gacantanka gobodan deegaanka iyo bilaabay intii hagaadan dagaalo goosgoose iyadana jabxoogan la ka deersii dagaaladii hagaadeen xildhibaano ku tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku mid hayeen Generaal Mahad Abdiraxmaan Aadan iyo Generaal Maxamed Sheekh Usmaan Ciirow oo iyo weheliyayeen wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gaadiidka dawladda koonfur galbeed iyo dhiirgelin ka saadii cudud ciidan ee geeka gacan ku haynta deegaanka Saydheelow ku wareegay argagixisada al-shabaab xildhibaanada ku tirsanay baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno ku tirsanay golaha wasiirada dawladda koonfur galbeed iyo booqdi goobo iyo sida sharci darada iyo ka gumaadayeen shacabka Soomaaliyeed iyadana iyo hadajiyeen calankii ka goranay tiraayada islaamka ee iyo ka dhuumaalaysadayeen wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dawladda koonfur galbeed Ilyas Ali Nuur Ali oo la hadlay warbaahinta ma sheegay intii ciidamadii sii wada doonaan howlgalkan la ka bacsadahay maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab marwalban iyo garab surnaada doonaan ciidamada naftiyo imaal joon hori badbaadiyo ka shacabka Soomaaliyeed waxaan la socdo xildhibaanka ex maaragtay Generaal Mahad ayaa la socdo taliishub saa u taqaanaan marka maanta waxa weeyaan shabaab godkooda biyo soo galay Saydheelow ayaa la taagan yahay waa xaruntooda ugu weynayd ay ka mid tahay haddana waa la sii socdaa ciidamadu way sii socdaan 3 jeer dagaal ay soo qaadeen 2 jeer waa la jibiyay cutubyadan ciidanka ee geeka deeri deegaanka Saydheelow yalla ka wadantii horan sii socdaan ilaa iyo gacan ku haynta deegaanada ku dhuumaalaysadayeen argagixisada al-shabaab iyo galanta ku dhikayaan waana qayb kumid ah dadaalada dawladda ee ka biyahay afjarowka gumaadka argagixisada al-shabaab iyo ka hayaan shacabka Soomaaliyeed tawxiidka ka been abuureen la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam iyo qoreen kalimadii oo dadkan aan wada dhaxayta lankasta muslimka aan wada dhaxayta lanka muslimka dhiigsha ilaaliyaasi lanka muslimka hantidiis ilaaliyaasi lanka muslimka cirdisha ilaaliyaasi lanka muslimka sharaftiis ilaaliyaasi iyo ku been abuureen yeeg ka Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed deegaanka Saydheelow